معقول صوماليا Yeah. Savings are heating up during the Memorial Day. Then I would say السلام عليكم صومالي محمد ساتهين وفي عنا هاي ما في عنتي يا وفينا ما فايدين والله أدونك واقسيني ورا اليالا وانت بوقت الله نوع عافية صومالي هدي برقي هوري صومالي هاي جستي هذا اللي سمعها بيني أنا اللي اسكو سيحين وحوانا ماذين بوقتها dadka inay wada fahmaana fiican you have to believe inay dhamaatay soomaalinimadii ya ana horta naag maraykan ahay laakiin inay soomaalinimadii dhamaatay beryadan ahaan jiray ay dhamaatay you have to believe soomaalinimadii inay dhamaatay waxaa kugu daliil ah nin cise iyo sharaf leh oo soomaaliyeed oo madax ah in laga dhigay dameer ookiyaale loo soo xiray yah la yiri af carbeed ku hadal oo xasan sheekhna inta laga soo dhigay marka waxaan moodi jiray soomaalida inay dhinac meel iskula wado wallaahi oo bilaahi abaay jugaay wallaahi bilaahi jugaay iga qoro taas maanta hadda is ogaada inaan jugaay boollayga maqan yihiin oo iga furan yihiin weligeedba soomaalida waxaan u malayn jiray bas inan dhinacun ay isula jeeda ilaa wax oo jukoosaad la yiraahdo oo qabiilaysid ahaa jira oo waxbana kuma ogoliyay sidii annaga nala yeelo kaloote yaa bal madaxweynihii ilaay oo cisiga iyo sharafta lahaay oo soomaaliyeed haddii annaga madaxweynahayna waay oo madaxweyne soomaaliyeed aniga cisi iyo sharafaan u haya ayaa dameer inaad ka dhigteen yaa aad galaas u xirteen yaa ookiyaal aad dab u siiseen aad dameer ka dhigteen aad ma aragtahay tirahdeen af ingiriis ku hadal dameeraad kasoo dameeraad inaad ookiyaalo u soo xirteen yaa aad xasan sheekh waayaad dhahdeen xasan sheekhna inta kalootaad fariisiiseen asaad dhahdeen af ingiriis ku hadal xasan sheekh codkiisii aad dameerka kasoo baxa afka dhaqajina sangoy horooy edab darrada iska dhaaf war hooy edab darrada ma wanaagsan war hooy gafka zaa'idka ah ma wanaagsan ninka waxaa soo dhigayo mustaqbalkaada iyo aayahaada daba u turo xasan sheekh waa nin nasab ah wadankana asagaa iskale madaxweyne waa yahay waana noqon doonaa waana ahaan doonaa laga yaabo 20-30 sano oo hadda ka dambaysa inuu xasan sheekh ku fadhi doono nafsiyaan wax ka ogahay dameerkaas aad hadda aad leedahay dameer waa galaas inuu soo xirtay ما سجى عربي حسن شيخ وأنا سومالية لغة كستا أو ما عرفته أو first language عدهن رجعت كتاه قفا أنت سنها حسن شيخ وأنا معلقة وأنا أردي سوح بري وأنا أردي إنه وح بري أفلحين كل شغيستان قار معارضي قار أو ما عرفته محافظ نقدم يا حسن شيخ Soomaali nin wax u noqon kara male Soomaali nin wax u noqon kara male cid wax idin noqon karta male cid idin wadi karta male nin walba saasa loo cunaya saad ku kantan inaan nin idil oo madaxdiina inaad ma aragtay aad ka daba shidataan dameer ka dhigtaan wax walba ka dhigtaan qoorweytadaasna maxay ahayd dadka wax waa laga sameeyaa waa caadi waa dadka waa lagu isku kaca wax waa laga sameeyaa qof aan jirin ba wax laga sameeynin qof jira wax kasta waa laga sameey karaa laakiin waxaa jira waxyaalo oo xadka inaad ka gudubtay oo kale tahay ma fiicnana marka hawiye madaxweyne waa ahanaya waa waqtigiisi meeshay u ekaataba waana yahay ama ku farx ama ku qasho والله هذا دولة الصومالي مال دقيسنيس أي بمقلايان ووركي دقيسناي وحندي لهاي
madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ba inay soomaali ay keenaan ma aragtay mooshin aan wadnaa inay dhahaan inaana waxbana la bedelin mooshin aan keennay hebel aan mooshin ka wadnaa mooshin ayaan hebel ka wadnaa inaad dhahaa la dhah inaanan la bedelin ya hebelow waa marxuum hebelow waa socdaa waa reeqaraan meel loo dhiib waa saanlow waa kanlow xasan waa dameer afe waa nacibi afe balka saasaa loogu daba shirtay ilaahay ow rasaqo meel kale idinka sii warwaay anaga rasaq waa buuxinaa been idama sheegayo balaayadan ad daldalaysaan ka daaya dadka war madaxdiina majimaha ku dhegina madaxdiina majimaha ku dhegina sii daaya dadka ha shaqeeyaana wax waddanka ha u qabtaana bahdilaada waa marxuum waa kan inta ka qaba oo waxbana laysu ogoleen iska daaya soomaali ha noolaataan leeyahay anigu waxbana soomaali kuma lihi soomaali anigu waxaan ku leeyahay male cuburis baad na saarteen waana idin cubursanna waana ogolahay soomaalinimadiian weli ogolahay gawar waxaan ogolahay inay soomaali sii jirto waxaan ogolahay soomaali inay sideedii hore kusoo laabato oo dadka isjeceyl iyo walaalnimo la kala dhaxlo inay xumaantaan naga guurto inuu qabiilkaan naga guuro waan rabaa haddaan la helaayo haddaan la waayana hadda ilaahay waxaan ka baryayaa boqortooyadii la duuga inay banaanka usoo dhacdo haddaaba soomaalinimadii la waayay ilaahay boqortooyadii la duuga ilaahay godkaa ka soo saara ilaahay godkaa naga soo saara ilaahay sixirkii soomaali ay ma aragta aji uu nagu qabtay sixirkii aji ay nagu qabteen ilaaha naga burburiy ilaaha naga furfuro ilaaha naga furfuro sixirkoodii iyo asraartoodii allah naga bixiyo ha noolaada ajuuraan ha jooga ha noolaada ha soo baxa qabiil idinood gumayseen baan noqona ilaa hadda midaan wax ka sayninba buug baan qoraa inuu yidhaahdo iska daldamo taraq oo soo yidhaah mas taraq maa loo baahan yahay taariikh haddaad haysa la ama haddaad hayn go weygaada qabso ciddaada ka faallo aniga maanta juraanan taariikhdiisa aan qori karaa haddaan dhaabal yaa ma qori kari waxbana kama ogi inkastoo aabahay wax badan uu ii sheegi jiray oo taariikhyahay haddana ma ku dhiiro kari inaan dhaha saanaa jirta iyo saanaa jirta kuma dhiiro kari waa ka baqa anaana ka dhashay marka adigaa ku dhiirani soomaaliya ilaahay nabad ha ka dhiga maba noqonaysa ilaahay ha ka dhiga maba noqon doontee ilaahay ha soo naadiyo nabadda ha soo naada ilaa waa waxaan la helayni mogtahay nabadda allah noo soo naadiyo dadkiini baa horin meel abic mashtar noqdo qaar badaha gala qaar xabsiyaha ku gurma qaar ma aragtay meelaha daadsan bay hoof dhalinyaradii waddanka wax u qaban laheed oo ama wax soo baratay oo dadkooda uu kusoo tabcay ayaa baddaas si sahal ugu dhimana doonaa lasoo saaraa baclaa fuufi la yiraa la saaraa meelahaas markay martay ilaa bacay aheed waxaa jukusiinaa neeftiya ka hadaysa yurruq adii biyaha dabaal lama yaqaano waxbana lama yaqaano bad waa leena qurux badan dabaasha lagama faa'iidaysa aniga hadda maanta haddaa doon lii saaro oo ila qarribanta dhagax dhulka lagu tuuri lee noqonaa dhub waa galaa ilaah waa ii ka sig yaa rabbi yaa marka maxaa kusoo ridaaya asagoo qofkii dabaal ka saynin asagoo waxbana aqaanin maxaa badda soo gelinaya maxaa waddan asaga aan lahayn keenay oo sharcina uusa ku ammaanin maxaa keeni kara waxaa keeni kara baahida waddanka ka jirta iyo ammaan darrada waddanka ka jirta ammaan nafta lagu dhaafiyaa oo lagu dilaa ammaan darra haddaad wax samaysatana waxaad yaaba lagugu soo dilayaa oo lagugu soo dhacayaa waxaad adiga lahayd ayaa lagugu soo dhacayaa oo lagugu dilaya naftaada lagu dhaafinaya waxaadan la qaadanaya adoon in lagu dilo ilaa nin nool xoolihiisa ma xalaal toobaana mogtahay adduunka lagaa hooyadana waa galbane ma garatay
marka soomaali nabad alla ha naadiyo maba soo socota ilaahay nabad hanoo naadiyo taas halkaasaa uga baxay boqortooyadana ilaahay ha soo noolee ilaahay xasidnimada naga saaro annaga dhexdayna xaasid ah haddaana xaasid ahayn waddankeenna beeruu leeyahay waddankeenna inaan nadaamsano beeraheenna ku dugno annaga waxayna aan saarano soo saarano isna noolayna ayaan wax qabsan karin dadka ilaahay amarkiisba dadka waxaad moodaa inay dhufaanan yihiin ya qofka wuxuu ku leeyahay beerta horta maxaa ku jebiyaa maxaa waa run dadka dhulkay galeen wax la-aan bay dhulka la galeen ya intaan hadda badda ku hoobanaysa oo intaan tahriibka intaan kala haadaysa ma tahriibaan haate uma badna hal faniini waa laga yaabaa inuu galo laakiin ciddaas ma tahriibka dad uma galaan oo dadkooda ma tahriibaan hanti ma haystaan xag dowlad wax kama haystaan waddan kastoy degan yihiin marka bes waa dadka ugu liitay noqdeen markaas hanti haddaad haysanin dadka waxaa magac u yeela hantida mar hanti la-aan hadday kugu dhacdo waa kuu dhamaatay marka dhibaato waa dhibaato inteeda la eg waa dhibaato inteeda la eg waa ilaahay waxaan ka baryayaa in waddankii uu nabad noqdo dadkana ilaahay uu nooleeyo qof aanan hanti haysanin waddankii oo abaar 3 sano 4 sano abaar ay iska noqonaysa dadkii oo hanti haysanin rafaad silac waa la marka naftii dadka ma aago-ayso dad gaajo u dhimanayo ad arkaysaa oo gaajo iskaga baktinayo marka wallaahi waa dhibaato inteeda la eg meeshaan salafaadkan meel uu ka amaada ma garanayo meel buu ka yimid laakiin meeshuu ka yimid ma garan kara ilaahay ha ka soo gaaro ummadaas islaamka ah oo soomaaliyeed oo walaalaha ah kolba waa xasidnimo bay ka dhalatay dhibaatada markay fara badata waa ka dhalataa xaasidnimo soo gashay meesha unbay dhibaatada badanaa ka timaadaa xaasidnimo haddaysan jirin dhibaatadaas ma amaanayso taas is true dhibaatadaas intaas dhan xaasidnimadaa keento ilaahay xaasidnimada dadka ka dulqaado ilaahay xaasidnimada dadka ha ka dulqaado taas ilaahay baan ka baryayaa marka walaalayaal anigana faatixada isoo mara waa xanuunsanahay soomaali maxamed ay faatixada isoo mara baalkana sheer iyo like isoo dhaha walaashiinaan nahay gabar soomaaliyadaa nahay marka laagta iyo sheerka waa xaggiina igu soo sadaqaysta ma garateen dee gabdhaha soomaaliyeed unbaa nahay qaarna af xumoodo qaarna ma aragtaay wax kasta sameeya kuwaas unbaan lamid ah marka si gooni ahaanne ha ii itaagin si gooni ahaanne itaagiisa dhicin ma garan marka walaalayaal waa idin salaamayaa waxaan joognaa waqti galab ahaan joognaa alxamdulilah TV baa iska fiirfiirsanaa marka ilaahay caafimaad qabkana siiyo waxaa ugu weyn oo adduunyada la helin waa caafimaad sareecan ilaahay hana siiyo kay ilmo ka maqan yihiin ilmihiisa allah u soo aruuriyo kii caafimaad ka maqan yahay caafimaadkiisa allah siiyo kii ma aragtaaye rasaqa xaggiisa cariiri ka yahay allah u waasiciyo inta bugtana allah caafiyo mashquulka laysku mashquulaayana horta aniga dadku mashquulin runtii anigu waxaa i qabtay kistoo cariiri aha lii saaray laakiin waxaa la yidhi muuminka adduunyada lagu mucjiso badan lagu tusaa waa lagu dhibaateeya muuminka adduunkaa lagu dhibaateeya qof dhib badan ma ihi laakiin waa gegsan waay 10 sano ay gubayaan aan la gegsan waay dhibaatay u dhacday unbaan la jaray ma ogey dadka dhibka badan oo dadka iskaga dhegdhega ma ihi mana dhalanin sida runtii marka laakiin haddaa lagu dhigo meel walba lagu dhigo qofo oo lagu wareeriyo ma aragtaay adiga problem aad qaadi karin oo maskaxdaada ilaa waddankan asagaaba problem iska socda ah ilmuhu leeyaad ahay dhibaatadaadii kale oo shaksiyan oo qoys ahaantaadii iska kaa haysato
haddaa wax kaloo banaanka lagaaga daro ama shaqo aad u kacdo lagaaga daro ama meel kale aad u kacdo lagaaga daro waa kuu dhammaanay. marka waa idin salaamayaa Soomaali Maxamed, gabadhiinaan nahay, walaashiinaan nahay, hooyadiinaan nahay. warbahalka share iyo like idhaha, share iyo like idhaha, ina soo dacooyo. waan xanuunsanahay, ilaahay caafimaad sareecan inuu ilaahay isiiyo, ii soo dacooyo, cafi masaamax. in lis cafiyo way fiican tahay, laakiin aniga dad aan cafin doonin baa jira. baan idin ma sheegay, dad aan cafin doonin baa jira, laakiin inta kolba yar oo dambigooda fudud yahay wax badan ii geysan waa iska cafiyaan. inta dhibaatadan ka tabanaya ama ma aragtay aniga sharaftayda meel lagu soo dhacay ama ma aragtay aniga inuu i dhibaateeyo isku dayay ama inay i sixray isku dayay oo i sixray, haddii cafis male ilaahay baa kolba uu la hortagaya. ma garatay? marka walaalyaalo maca asalaama, waa idin salaamaya. baalka share iyo like idhaha, nooli kulanta.